kugu dhaliyay hanka madaxweynaha mustaqbalka بسم الله الرحمن الرحيم hanka madaxweynaha mustaqbalka inaan dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland ka noqdo waxa igu dhaliyay markii aan arkay duruufo fara badan oo dalkan yaala aqoontaan u leeyahay iyo kartida iyo daacadnimada iga muuqatay bulsho fara badan ay igu tilmaameen waxa ii soo baxday in aan noqon karayo madaxweynaha mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliland aqoonteeda iyo kartideedana leh aaminsanahay inaan wax badan ku soo kordhin doono bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland safarkaad ku socotaa waa safar dheer siyaasaddiina kama maarmayso wadankiina waxa ka jira 3 xisbi qaran bal 3 xisbi qaran keeba taageertaa kullay xaalado fara badan baa jira ka madaxweyne mustaqbal ahaan waxaan ahay nin hankiisu fog yahay 3 xisbi qaranna waa 3 xisbi qaran oo jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay mid walbana qiimo gaar ah ayuu leeyahay ma doonayo maanta inaan noqdo taageero xisbi inaan noqdo ma doonayo waxaan doonayaa hankayga siyaasadeed halkii aan isiraahdo waan marsiin karaysa hadhowdii mustaqbalka inaan la jaanqaado kullay dalka 3 xisbi qaran ee ka jira mid walba wuxuu u baahan yahay bulshuu ku sii ahaado xisbi jira taageeradayda iyo qorshayaashayda markay arkaan iyagaan aaminsanahay inay igu soo baratami doonaan kanaan isiraahdo kaas ayaa ugu habboon oo bulshadana raali gelin karaya ayaan insha Allah iska soo sharxi doonaa maadaama in badan ay dadku siyaasiyiintu ay yiraahdeen waxbaan qabanayna dadkiina kan iyo jabeen waxa suuqa dadka ku daawanaya dushii iyadoo ay taasi jirto waxaan soo maray waqti adag baan soo maray marxalado fara badan baan soo maray noloshaydu wax badan baan la soo halgamay alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waxaan marayaa waqti aan bulshadayda ugu adeego waqtiga intayda ka hadhay oo aan bulshada ka dhigo sida noloshayda aan u soo dhirandhiriyay ee aan u soo gaarsiiyay heerkan aan maanta marayo ee heerka ugu wanaagsan aan u gaarsiiyay ayay qorshahaygu yahay inaan bulshada intayda kale sidaas oo kale u soo gaarsiiyo waxa weeye xaalado fara badan baa jira waxa jira dalka waxyaabo badan oo u baahan in wax laga qabto dhibaatooyinkan waxay u baahan yihiin in daraasad lagu sameeyo dad akademik loo diro la baaro waxa keenaya dhibaatooyinkan jira qaabkii looga bixi lahaana la sameeyo iyadan ugu dambeyntii barnaamijkeena soo gaarnay waxaan maanta tahay nin dhalinyaro codka ugu badan waxaad ka rajaynaysaa dhalinyaradiina shaqo la'aan baa soo foodsan maxaad xal u haysaa shaqo la'aanta gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waan soo maray ilaa hadday tahay Saylac hadday tahay ilaa Boorama ilaa Gabiley ilaa Hargeysa ilaa iyo Taleex ilaa iyo Ceerigaabo ilaa iyo Baran ilaa iyo Hadaaftima Soomaal ilaa Laascaanood meel aan tagin haba yaraatee ma jirto waxaan la kulmay dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan waxaan xog fara badan oo ku aadan dhibaatooyinka haysta ayaan kala soo kulmay waxaan la kulmay dhalinyarada heerarkeeda kala duwan ee gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyaradaasi waxay iiga warameen xaaladaha ay ku sugan yihiin heerkay kala taagan yihiin gobol walbana marxalad buu dhalinyaradiisa ku sugan yahay u baahan in lagu qiimeeyo gobol walba marxaladda dhalinyaradiisa ku sugan yahay dhalinyarada ku sugan gobolada galbeedka baahiyahoodu waa mid gaar kuwa ku sugan gobolada bariga iyaguna waa mid gaar haddaba waxa loo baahan yahay gobol walba baahiyaha dhalinyaradiisa ku sugan in wax laga qabto sida wax looga qaban karayana waa in daraasad cilmiyeysan la sameeyaa gobol walba